السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال soo dhawaada dhammaantiin waxaan halkan kusoo gudbinaynaa cashir basic ah oo ku saabsan patternska reversalka dhaliya iyo sida looga faa'iideysto marka aad tahay basic amaba intermediate qaabkaad ula dhaqmi lahayd halkan waxaan kugu soo gudbiyey kuuna soo diyaariyey sawir gacmeedyo aan sameeyey markaan aniga ahaa basic ama intermediate oo kale aad ayaan u jeclaa inaan raadiyo patternska pdf-ka ku qoran ku sawiran ama in aan aniga gacanteyda sabuurada markaan imaado aan ku sawiro sawir gacmeedyada balse maskaxdeyda ay ula qabsato indhahayga iyo gacmahayguna ula qabsadaan oo aan suuqa markii aan ku arko ku ildoofin ogow markaad cusub tahay chartisku qalqal ayaad ka dareemaysaa waxaad arkaysaa waxaadan arki karin markaad advancega tahay iyo markaad experiencega tahay hadda ayaa lagaaga baahan yahay bal in aad indhahaaga tusiso chartiska oo aad mararka qaar intaad jarto chartiska kadibna balay inaad dhahdo dailyga ama weekliga inaad tagto kadibna bal sida u dhaqaaqayo chartiska aad fiiriso wax badan ayaa kuu baxaya marka oo backtesting haddii aad samayso iyo haddaadan samaynin isku mid ma noqonaysid waana go'aanka waxa go'aaminayo traderka guuleysta iyo midka niyad jabo marka ma rabo inaan hadalka badan iyo talada maxay ahayd mararka qaar way leedahay balse cashirkeena muhiimadiisa ayaan guda gelaynaa ma rabo in muuqaalka u dheeraado halkan waxaan kuu soo diyaariyey reversal patterns oo aan is leeyahay runtii haddii qofku uu ku ceshto indhihiisuna maxay ahayd ay la qabsadaan asagana practice uu ku sameeyo wax badan ayaa ka bedelmi doona oo ah in tradeka inuusan ku degdegin uu hubiyo waxa uu markaas tradeka uu markaas qaadanayo waxa uu ku sugan yahay patternka uu ku sugan yahay waxaan jeedaa pattern aadan micnaha hubin jihada waxa uu yahay asagu ma in uu rising wedge yahay in uu head and shoulder yahay in double top uu yahay double bottom in expanding yahay in ascending ama descending yahay haddaadan ba aqoonin patternka markaas aad ku sugan tahay runtii waa aad ay u adag tahay inaad aaminto inaad marka lacagtii gasho marka maadaama annagu aan fiirinayno waxa aan ku trade garaynaynin ay yihiin patternska waa muhiim inaan aqoon u leenahay price actionku waxa uu samaynayo ama haddii aan aragna xataa wax yar in form noocaas oo kaleeta uu sameeyey pricekii balse uusan isdhamaystirin annagu waxa aan beeshin ku nahaya waxay tahay in bal xornimo aan seeno suuqa uu ku dhaqaaqo si uu patternku isku dhammaystiro kadibna annaga markaa intrigeena aan ka helno ogow qaab early hadda u gasho suuqii ama dhaqsi suuqii haddii aad ku degdegto oo aad gasho kadibna lacagtii ay kula kala wareegto jiha kale ay kula aado waxaad ogaanaysaa markaas in aad adiga suuqii ka hor imaatay cashiro badan ayaa soo socda insha allahu tacaala marba marka ka dambeeyana faa'iido ayaa cashirada sii yeelan doonaan cashiro oo waxaan soo wadaa advancea intermediate iyo basic isugu jira si qof waliba oo journalka booqda ama ku cusub suuqa ama suuqii khibrad u leh intaba ay ka wada faa'iidaan oo ay wax ugala baxaan marka reversal patternska halkan waxay ka dhacaan top of the structure ayaad ka helaysaa waxaad ka helaysaa middle of the structure ayaad ka helaysaa meelo badan oo suuqa kamid ah ayay ka dhacaan marka rising wedge-ga sidiisaba wuxuu ku yimaadaa waa laba option rising wedge-ga sida aad u taqaano descendingka iyo ascendingka oo labadaba ay yihiin laba reversal ah oo midna buy dhaliya midna sell dhaliyo waxaad arkaysaa halkan inaan haysano rising wedge-ga aan haysano waa bearish marka uu bearish yahay iyo marka uu bullish yahayna laba ayuu ku tilmaamaya laba way ayuu ku kala tilmaamaya oo ah marna in uu buy ku tilmaamo marna in uu sell ku tilmaamo haddii aad ka aragto rising wedge-ga top of the structure ama qaybta sare ee suuqa haddii aad ka aragto ogow mar waliba afkiisa hore ayaa aad u dhuuban meesha hore oo aad koowaad oo uu priceku ka kaco markuu impulsive ka sameeyo oo noocan oo kaleeta ah marka aad aragto waxaad arkaysaa in uu halkan ka weyn yahay uu qaybta dambe ee afkan uu urursan doono aad uga yaraan doono marka uu bearishka yahay oo top of the structure aad ka aragto form noocan oo kaleetana uu kuu sameeyo adiga waxaad gelaysaa oo aad weliba waxaan kuu soo diyaariyey pattern keliya ma ahane qaabkii intriga aadan lahayd ayaan kuu soo diyaariyey oo runtii in
wax badan ay kaa saacido aan rajaynaya hadduu ilaah yiraahdo. Marka raylanka marar badan waxaad ugu aragteen istiraatiijiyadda qaabkaan u isticmaalayno annagoo raylankan wadana. Raylankan waa powerful oo istiraatiijiyadda aan isticmaalayna ayuu laf dhabar u yahay. Asaga iyo trade laneka la'aantoodna annaga wax maxay ahayd wax nagu hago suuqii oo jihadan na tuso arki mayno. Marka waxaan u isticmaalaynaa waxay tahay raylanka iyo trade laneka bal in ay wadada saxan nagu dugaan. Wadada saxan markaan leeyahay ma aha in raylanka halkan haddii aan saaro inuu saxan yahay ma. Halkan haddii aan saaro inuu saxan yahay ma. Waa inaad saarto meesha price-ku uu ku hakaday oo halkan ah cirifka hoose maadaama aan haysano rising wedge oo aan rabno inaan bearish uu yahay oo aan rabno inaan sell u raacno. Waxaan dhiganaynaa raylanka halkan ayaan dhiganaynaa oo qaybta ugu hooseysa oo price-ku markii hore uu ka kacay ayaan dhiganaynaa. Waxaan marka rabnaa inaan khasaare aan ka fogaano annaga oo aan si degdega suuqi ku gelin oo aan confirmation buuxa helno si halkan marka uu price-ku yimaado meeshaan markuu price-ku yimaado in aan galno oo entrygeena aan ka qaadano si halkan risk entryga aan uga fogaano confirmation buuxana uu noo siiyo in pattern-kii uu isdhamaystiray kadibna jihadii sell-ka ahayd in uu aadayo. Marka halkan raylanka aan dhiganayno waa meesha entryga aan ka qaadanayno oo aan ku dabaqayno. TP-gana sidoo kale asagana waan dhiganaa. Marka rising wedge-ga halkaas ayaad gelaysaa top of the structure ayaad gelaysaa form noocaas oo kaleeta ayuu sameeyaa. Wuxuuna u kala baxaa falling wedge iyo rising wedge ayuu kala baxaa. Marka falling wedge asagana halkan waxaad ka arkaysaa in uu qaybta sare impulsive kasoo sameeyo kadibna top of low of the structure in halkan sidoo kale uu ka weyn yahay oo uu ka ballaaran yahay qaybta koowaad marka uu samaysmayo kadibna waxaan arkaynaa in uu sidaan oo kaleeta u ururo. Marka kan ma ahan descending ma ahan oo qaab noocan oo kaleeta markaad aragto descending oo kale ha ku qaldin qaab noocan oo kaleeta ayuu samaysmaa falling wedge-ga. Kadibna waxa entrygeena aan ka raadinaa waxay tahay impulsive-ka markuu yimaado uu jebiyo meeshaan raylanka uu noo yaallo markuu jebiyo halkan ayaan waxaan ogaanaynaa in uu baxay ayaan ogaanaynaa price-kii loo sii push garay doono kor ama buy uu aadi doono. Marka dhowr nooc istiraatiijiyadu way ku imaanaysaa balse pattern-ka muhiimadiisa ayaa ah markuu yahay bullish markuu yahay falling wedge-ga inaad isagana sidaa uga faa'iidaysato. Haddii kale annaga waxaan sugnaa oo istiraatiijiyadan aan ku aragnay badanaa in halkan impulsive-ka aan sugno kadibna correction-ka aan sugno oo aan correction-kaas entry ka qaadano. Tanna waa la mid oo impulsive ayuu uga baxayaa pattern-kii meeshaan ayaan marka entrygeena ka qaadanayna. Halkan entryga aan ku siinayo ogoy waa corrective-kii. Corrective-kaas imaanayo pattern-ka marka uu ka baxo ayaad qaadanaysaa. Sidaas inaad ila socoto ayaan jeclahay hadduu ila yiraahdo. Meeshaan waxaan haysanaa head and shoulder. Head and shoulder waa laba garab iyo madax af Soomaali ahaan waa suuqa wuu sameeyaa pattern-kan labada garab iyo madaxa wuu sameeyaa. Qaab noocan oo kaleeta markaad ku aragto meeshaan waxaa la yiraahdaa neckline oo waa halkan noo sawiran waa neckline. Neckline-kan in la jebiyo ayaad sugaysaa adiga oo meeshaan neckline-ka hoose ayaad entrygaada ka qaadanaysaa marka aad training-ka wadid ama intermediate aad tahay. Waayaan sidaas u leeyahay waxay tahay backtesting badan oo aan sameeyey iyo wax inta aan khibrad u leeyahay suuqa oo aan ku arkay waxaa dhacdo badanaa head and shoulder-ka in suuqii uu weliba low time frame-yada yaryar ayaa ugu badan sida 1 hour oo kale waxaad arkaysaa meeshaan in uu noqon doono inuu corrective ahaan in uu baxo qaab noocan oo kaleeta in uu baxo sida aad ku sugaysid in uu neckline-ka soo jebiyo. Marka waa muhiim inaad patient u noqoto oo neckline-ka markuu soo jebiyo in aad gasho. Taa ayaan kugu celinayaa head and shoulder-ka. Low time frame-ka badanaa jihada intuusan jebinin neckline-ka haddii aad ku degdegto wuu laabtaa pattern-ka. Waana muhiim waxa uu soo dhamaystirayo structure-ka guud. Waxa markuu head and shoulder-ka samaysmayo waxuu ku dhex samaysmaya structure dhacays marka structure-ka suuqa uu ku sugan yahayna waa muhiim inaad ogaato oo casharkii nature-ka ahaa asagana haddaadan daawanin fiirso ah wejigee maxaa la yiraahdaa aniga halkee ayaan ku suganahay ma impulsive phase ayaan ku suganahay mise corrective phase. Phase identification-kana aad iyo aad ayuu muhiim u yahay wuxuuna kaa dhigayaa trader xoogan oo maskaxdiisa iyo mindset-kiisa aad iyo aad awood ay u leedahay oo aanan ku degdegaynin indhahana uusan suuqa ku siri karin markuu arko. Double top halkan in badan ayaad arki doontaa waa
laba mar in uu suuqu kusoo laabto meel isla eg inuu laba mar kusoo laabto halkan ayaa waxaa la yidhahdaa double top ayaa la yidhahdaa halkan risk entry waa laga qaataa oo maxay ahayd advancega iyo intermediate-kaba meeshan qaabka loo taga ayay ku xiran tahay waa in badan ayaan sharaxay double topka qaabka loo tago corrective ahaan iyo impulsive ahaan cashiro asagana advance way ku jiraan journalka oo aad ka arki karto marka intaas ayaan ugu gudbaynaa balse meesha marka aad tahay intermediate ama basic ama maxay ahayd inaad riski ka fogaato aad rabto neckline ayuu leeyahay ogow double topka marka la jebiyo oo kale halkaas waxaad ka qaadanaysaa entrygaada ayaad halkaas dhiganaysaa ama correctivekaas impulsivekaas yimid ayaad halkaas ka qaadanaysaa entrygaada halkan asagana waxaan haysanaa oo aan kasoo booday sorry inverse head and shoulder ayaa la yidhahdaa kan oo waa laba garab iyo madaxii oo isaguna ku samaysma qaab fooraran ayuu ku samaysmaa kan waxaa la yidhahdaa inverse head and shoulder ayaa la yidhahdaa marka inverse head and shoulder kan markuu qaab gedisgedisa oo sidaan oo kaleeta uu samaysmo oo aad aragto meeshan waa neckline-kaaga marka la jebiyo entry-gaaga halkaas ayuu kaa siinayaa haddii uu correction ku samaysmana waad ka qaadanaysaa haddii neckline-ka la jebiyana lugtan ayaa la dhamaystiraya target-kaagana waxaad dhiganaysaa lugtan meel la siman ayaad dhiganaysaa oo halkaas ayaad dhiganaysaa marka inverse head and shoulder-ka suuqa wuu baygareeyaa oo jihada bayda ayuu reversal uga dhigaa oo jihada bayda ayuu suuqa aadiyaa inverse head and shoulder halka head and shoulder-kan asagu uu yahay in suuqii jihada selka uu dhamaystirayo lugtan halkana inaad asagana targetkiisa dhiganayso intaas ayaan labada garab iyo madaxa ugu gudbaya asagana meeshan waxaan haysanaa sidoo kale double button waad maqli doontaa double button in badan intaad suuqa ku jirto oo ah in meeshan uu suuqu ku sameeyo si isla eg laba garab maxaa la yidhahdaa laba mar in uu qaybta hoose low of the structure inuu soo taabto meesha markuu dhamaystirayo risk entry in aad qaadato halkan aniga waxaan kuusoo wada diyaariyey dhammaan waa reduce risk entry-ga oo basic ahaan iyo in aad capitalkaaga ilaashato oo aad taxadirto inta suuqa aad la qabsanayso balse risk entry-ga halkan waa laga qaataa shuruudo ayayna leedahay inaad hesho candles maxay ahayd kuu waafaqayo shuruudaha sida low test candle oo kale inaad meesha ka hesho structure markaas aad ku aamini karto inaad risk entry-ga qaadato ama in aad hesho candlada wax bedela oo suuqii jihadiisima jihada bayda u bush gareeya inaad hesho taana waxaan sameynaa cashir dhan oo candlada ka hadlaya asagana uu ku jiraa waad daawan kartaa marka halkan waa entrygaada haddii corrective ahaan halkan uu ku yimaado correction meeshaas waa meeshaad entry-ga qaadan lahayd impulsive-kan suuq corrective-kaasna qaado waa muhiimadda waxaan ka wadaa intaa ma aha in la jebiyo markii la jebiyo horey ka gal ma aha waa sug mar waliba meelaha aan idin dhigayo waa correctionka meelaha uu ku samaysmo haddaad samaysaan baaritaanna waa waxaad soo wada arki doontaan meeshan waxaan haysanaa rising wedge oo bullish ah iyo filing wedge oo asagana bearish ah waa soo sharaxaysna umalaynaya halkan mar labaad inaan qoray ayaa umalaynaya mar labaad kuley dadaal leegahayd halkan asagana waa filing wedge qaab noocan oo kaleeta ayaad ku arki doontaa asagoo bearish ah markaas lugtiisa ayuu dhamaystiraya ilaa lugtiisa ayaad la soconaysaa entry-ga marka la jebiyo ayaad gelaysaa rayline-kaaga halkan ayaad dhiganaysaa impulsive correction-kan ayaa sugaynaa kadibna waa qaadanaynaa rising wedge sidoo kaleeta asagana markuu yahay bullish waxaan sugayna waa lugtan impulsive ku imaatay sida head and shoulder-ka oo kaleeta targetkeena uu yahay lugta koowaad ee suuqa uu markii horeeto impulsive ku yimid sidoo kaleeta asagana halkaas ayaan dhiganaynaa oo TP-geena halkaas ayaan dhiganaynaa meeshaan marka aragna qaab noocan oo kaleeta inuu sameeyey impulsive-kan ayaan sugaynaa corrective-kanna entry-ga ayaan ka qaadanaynaa targetkeenana halkaas ayaan dhiganaynaa halkaas ayaan ugu gudbaya tanna meeshaan waxaan haddana ku haysanaa triangle-lada uu suuqu sameeyo patterns waxaa jiro triangle patterns la yiraahdo ama triangle patterns oo ah in suuqa uu sameeyo patterno triangle ah marka triangle-ladan meel walba ayaad ka helaysaa oo suuqa way ka dhacaan sida middle of the structure kale qaybta dhexe ee suuqa in badan ayaad ku arkaysaa ascending triangle ayaad arkaysaa marka ascending triangle-kan sidee ayaan u arkayaa ma ahan rising wedge oo kaleeto in aad u fahanto ma ahan rising wedge ma ahan kan waxaad ogaanaysaa inuusan rising wedge ahayn sideese macnaha ku kala ogaan kartaa waxay tahay qaybta sare ascending-ka
marka uu triangle ascending triangle marka uu noqonayo qaybta sare waa support oo isla eg yahay ma kala dheero ayaan ka wadaa ma kala dheero oo halkan waxaan arkaynaa in ushan si cabir caadiya in ay iskula eg tahay oo resistance ay tahay afwan haddii aan meeshaas waa resistancegan kore ee isla eg ee siman usha markaad soo qaado sidaan haddii uu price ku siman yahay meeshan uu sidaan oo kaleeta ka yahay markaas ayuu wuxuu noqonayaa ascending triangle ayuu noqonayaa oo qaybta hoose waa waxaanan isla ekayn oo price-ka sidaan oo kale ayuu ugu samaysmaa oo meeshan waa meel triangle-ka uu ka yimaado halkaana waa resistance oo ma ahan wax kala sarreeya ma aha taas ayaan u malaynaa inaad si fiican inaan u sharaxayo fahmi karto halkan waxaan haysanaa descending triangle asagana descending triangle-ka marka ascending triangle-ka markaa hesho sidaan oo kaleeto selkiisa ayaa mar walba ascending-ka waxaan aragnaa inuu sel soo aado balse triangle-ka ascending-ka markaa hesho halkan waad ka qaadan kartaa risk entry reduce risk entry-gana halkan ayaad ka qaadanaysaa meeshan waxaan haysanaa descending triangle descending-ga waxaan ku ogaanayno waxay yihiin labadooda waa opposite oo way kala waa bilcagsigii kii horeeto ascending-ka ahaa waxaan ula jeedaa haddaad arki jirtay in marka price-ka uu sidaan yahayna descending la yiraahdo halkan markuu yahay kor uu socdaan ascending uu yahay oo bilcagsigii uu yahay kor iyo hoos markii uu kala socdaan tanna waa sidii oo kale bal fiiri meeshan hoose oo support-ka ah ayuu sameeyaa descending-ka oo hoos ayuu wuxuu ka yahay wax siman ayuu ka yahay sida kan uu ka noqonaya inuu ka siman yahay kor descending-ka hoos ayuu ka siman yahay support ayuu ka yahay korna wuu ka fooraraa oo triangle-ka ayuu kasoo sameeyaa sida ascending-kana hoos uu uga sameeyo triangle-ka opposite-ka sidaas ayay isugu yihiin qaab noocan oo kaleeta ayaad ku arkaysaa halkan risk entry-ga asagana waa ka qaadan kartaa reduce risk entry-gana halkan ayaad ka qaadanaysaa marka descending triangle asagana sidaan ayaan ku gabagabaynaynaa meeshan waxaan haysanaa symmetrical triangle-ka labadooda midna ma shabaho oo kan asaga wuu fooraraa caadi ayuu u fooraraa kanna sidoo kaleeta asagana sidaan ayuu triangle-ku sameeyaa oo labadoodaba ma aha sidii hadda horey aad usoo aragtay haddii uu ascending-kana resistance kor ka sameeyo descending-kana support hoos ka sameeyo kan labadoodaba wuxuu ku sameeyaa qaab noocan oo kaleeta ayuu ku sameeyaa oo price-ku marna sidaan ugu socdaa symmetrical triangle-ka asagana qaab noocaas oo kaleeta haddaad ku hesho in aad sel usoo qaadato sidaan oo kaleeto ku sameeyo risk entry halkan waa ka qaadan kartaa reduce risk entry-gana halkaas ay ka qaadan kartaa meeshan waxaa haysanaa asagana expanding triangle dee aan qornama soo qorin expanding okay triangle okay expanding triangle-ka asagana sidaan oo kale selkiisa aad ayaan u jeclahay batankan waa pattern faa'iido aad iyo aad u xoogan leh markaad aqoon u yeelato barato suuqana aad ku aragto runtii waxa waaye akoonkaaga ayaa ka dareemaysaa faa'iidada uu leeyahay sababtoo ah meeshan hoose ayuu asaga isaga dhow yahay meesha koowaad uu ka bilaabanayo ayuu asaga isaga dhow yahay haddaad arki jirtay bailin wurjiga in uu qaybta hoose maxaa la yidhahdaa qaybta uu bilowga ah ee price uu ka bilaabanayo patternka markuu isbilaabayo meesha uu ka bilaabanayo rising wurjiga iyo filing waxaan aragnaa in ay ka weyn yihiin laakiin afka hore ay kasoo aruuraan balse expandingka marka hore ayuuba meesha ka yar yahay oo afka hore uu samaysmayo ayaa yar sida halkan aad trade linkeena ku aragto kadib ayuu ballaartaa oo meesha markuu yimaado ayaa waxaad arkaysaa impulsive correction halkan corrective aan in loo tago qaababka loo jebiyo patternskana iyo sida looga helay entryga marka ay corrective aan u jebinayaan marka impulsive aan u jebinayaan waxa dhan oo wada taqaanaa muuqaalka inuu dheeraado ma rabo haddii uu impulsive ahaan u jebiyo qaab noocan oo kaleeta week ah retrace candle ayaa dhacayo kadibna waa qaadanaysaa hooba oo caadi ayaad maxay ahayd correction ka state flag u qaadanaysaa haddii uu corrective ahaan u tagana sidoo kaleeto meeshaan oo ay noqoto 80% in corrective uu yahay price-ku markaas asagana halkaas ayaad ka qaadanaysaa risk entry-gaada sidaa qaab noocaas oo kaleeta haddii kale impulsive-ka ayaa sugi kartaa meeshaan ayaad waxaad ka qaadanaysaa flaagaada waayo meeshaan ma aha meesha loo kala ordaayo lacagta laga sameynayo halkan maaha impulsive waa halkan meesha aad lacagta ka samaynaysid intaas ayaan kusoo gabagabeynaya cashirka
waxaan jeclahay in aad waxaan rajaynayaa in wax badan aad ka faa'iideen haduu Ilaahay yiraahdo wayna sii socon doonaan cashiro badan ayaan soo wadnaa kastoo bil Ramadaan ay tahay oo waqti badan la sooman yahay balse waan dadaalaynaa oo cashiro badan oo taxana ah way imaan doonaan haduu Ilaahay yiraahdo guul ayaan idin rajaynayaa dhammaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.